Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo inta uu siyaasadda ku jiray aan la hadal warbaahinta ayaa bixiyay mid ka mid ah wareysiyadii ugu saameynta badnaa siyaasadda Soomaaliya. Waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo iskugu jira intii uu nisa joogay, guuldaradii doorashada, waayihiisa nolosha, dilkii Ikraan Tahliil, sida uu u arkay taliska cusub ee nisa. Waxaa ka muuqatay kalsooni badan inuu yahay nin wax badan soo qabtay intii uu taliska u hayay hay'adda ugu muhiimsan dalka. Waxa uu dhisay hay'ad sirteeda qarsoon tahay, kana mid noqotay hay'adaha sirdoonka ee ugu horeeya Afrika. Sidee buu u arkaa taliska cusub? Waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu aqoon u lahayn Mahad Salaad, haddii uu garan lahaana uusan u magacaabi lahayn hay'adda sidaa u weyn oo indhaha dalka ah. Mahad Salaad waxa uu ka mid yahay kuwa laga ilaalinayay inay ogaadaan sirta qaranka. Sidaa daraaddeed, saraakiisha dhalinyarada ah ee nisa ayuu la dardaarmay. Waxa uu sheegay in Mahad Salaad qofka sirta u sheega uu la mid yahay qof u sheegay qofkii sirta laga ilaalinayay. Khilaafka maamul goboleedyada waxa uu ka yiray Fahad Yaasiin. Isaga oo ah taliyaha nisa ayuu madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe oo la jira saraakiil Kenyaan ah waxa uu sheegay in madaxweynihiisu uu yahay Farmaajo, Uhuru Kenyattana uusan ahayn, taas oo cadeynaysa in khilaafka Jubbaland uu halkaas ka soo bilowday. Dhanka kalena waxa uu sheegay in Puntland ay ku qasaartay cilaaqaadka ay la sameysay Jubbaland oo danaha Kenya ka shaqeynaysay. Saciid Dani oo isku haleynayay saaxiibkiisii Axmed Madoobe in uu taageeri doono doorashadii 15 May Muqdisho ka dhacday, ayuu waayay gacantii uu muddada badan tacbayay ee Axmed Islaam Axmed Madoobe. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ilaa iyo hadda ah qofka ugu saameynta badan ra'yul caamka ayaa waxaa ku hareeraysan cadaawad tiro badan oo gudaha iyo dibadda ah. Kiiska Ikraan Tahliil ayuu sheegay in ay ka dambeeyeen Al-Shabaab, caddeynteedana ay hayaan xeer ilaalinta dalka. Ra'iisul Wasaare Roble oo marar badan ku celceliyay in uu yaqaan qofka Ikraan dilay ayuu Fahad yiri waxaa laga yaabaa in uu Roble og yahay qofka dilka geystay, isagana laga rabo caddeynta iyo qofka uu yahay. Waxa isaga lagu heystana ay qalad tahay. Doorashada Soomaaliya waa la iska adkaadaa, wax ceeb ma ahan. Anigana waxaan ahay qof shakhsi ah, ma ihi shirkad ama masiin. Waxaa sidaa leh Fahad Yaasiin oo la yaabay hadallada dadka qaar ee isla dhex marayaan ee ah in dalka Qatar weli ay la shaqeynayso Fahad Yaasiin. Fahad waa guuldaradii ugu horeysay ee soo gaarta inta uu siyaasadda Soomaaliya ku dhex jiro. Waxa uuna sheegay in uu siyaasadda ku sii dhex jiri doono, dibna ugu soo laaban doono, waqtina uu siin doono dowladda cusub, isagana uu ka nasan doono siyaasadda inta doorashada dambe laga gaarayo.